بسم الله الرحمن الرحيم. إله بها مهدله waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inaan halkan kala wadaago xaaladda dalka ka jirtay xalay ilaa saaka waan ku waabareysanay xaaladda dalku uu galay runtii xaalad aad iyo aad u adag weeye annagoo og dalkan inuu nugul yahay fragile uu yahay aan ognahay dowladnimadeennii meesha iyo heerka ay marayso maanta in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ka dhamaaday xilkiisii iyo mandatekiisii iyo sharciyadiisii 20 casho ka hor ay ka dhamaatay ilaa haddana uu ku fadhiyo si sharci darro ah oo aan wada ogol ahayn oo aysan heshiis ahayn doorasho ku soo noqdeen aysan ahayn waana runtii wax aan muddo dheer aan ka digaynay waxaa dalku hadda ku jira dagaalo culus iyo magaalada ka dhacay oo keenay dhimasho badan iyo dhaawac badan iyo barakac aad iyo aad u weyn intii dhimatay Allahu naxariisto jannadii firdaws Allah ka waraabiyo inta dhaawac ahna Allah booga dhayo inta qaxday oo barakacdeena waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu u fududeeyo hawshooda waana runtii wax laga baaqsan kari aan loo baahnayn oo aan uga dignay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waqtigiisu dhamaaday oo maanta ku fadhiya sharci darro in aysan arrintan gaarin xaaladan aan maanta aan taaganahay inaan la gaarin oo ah in gurigiisii lagu weeraro madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed iyo dad mas'uuliyiin salaadiina oo ugu horeeyo ogaas Cabdirasaaq ogaas Cabdullaahi Farcade iyo mas'uuliyiin dalkan xil u soo qabatay sarsare oo kamid ahaa oo kamid yahay ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre halkaasna oo ka dhacay runtii tacaddi iyo foolxumo aad iyo aad u weyn dad badan oo deegaanadaas deganna ay qaxeen ilaa haddana ay qaxayaan waxaa laga yaabaa xasan sheekh maxamuud inuu leeyahay farmaajo madaxweynihii hore isaga naftiisa hadda waa madaxweyne hore laba madaxweyne horaan nahay inuu leeyahay farmaajo hal sano ku darsaday ee adigana ku darso madaxweynuhu anigu hal sano kuma darsan anigu waxaan haystay sharciyad September 17 yaan heshiis galnay 6 bilood ka hor xilligii mandatekeyga u dhamaanayay wixii ka dambeeyay idinkaa diidanaa doorashada oo adaa ugu horeeyo marina galay oo halkaas ka dhibaateynay dowladnimada iyo dagaal aan loo baahnayn halkaas ka soo waday cid ku soo weerartay ma lahayn 100 jeer yaa dadka waxa ugu sheegtay waa la soo weeraray oo marina lagu soo weeraray maayda lagu soo weeraray waxaasoo dhan waxay ahaayeen been abuur cid ku soo weerartay cid mas'uuliyiin weerartay guryahooda ku weerartay ma jirin cid madaxweynayaal weerartay ma jirin laakiin caawa waxa aad samaysay ama aad hadda sameynaysaa waxa weeye oo aad jideynaysaa in madaxweynayaashii hore oo xilka ku wareejiyay inaad guryahooda ku weerarto oo aad u adeegsato ciidamada qalabka sida oo aad siyaasadeynayso ciidamadaas qalabka sida ee Soomaaliyeed waxa xaqiiqo ah hadday wax dilaanna waxay galayaan cadaabta haddii iyaga la dilna cadaabta iyo galayaan labada jeer maxaa yeelay waxaa tahay madaxweyne waqtigiisa dhamaaday marka amarka aad ku siinayso inay madax hore ee guryahooda ku weeraraan madaxweynuhu xaq uma lihid saxna ma aha waxaan ku leeyahay mar kale wax badan baan kuu sheegay oo aan kaala hadlay oo laga soo bilaabo maxaan ku raahdaa 2 sano iyo bar ka hor xilligii aad kaale oo isugu yeertay mas'uuliyiinta anaan ku jiray laakiin aan ka cudur daartay waan kula soo hadlay waxaad waday dastuur la bedelayo oo adigu kaliya aad leedahay waa lagaaga digay waad ku socotay aniga iyo madaxweyne Sheekh Shariif yaad 2024 Mars waxaad noo dirtay Saciid Cabdullaahi Dani oo aad tiri waa joojinayaa inaan hore u wado dastuurka kaliya ahay aniga iyo isaga hanala dhex galo waa idin dhex galnay adiga isbedelay waa wada dastuurkaaga kaliya ahaa adiga ansaxsaday adiga keensaday doorasho adiga aad leedahay shuruuc aad leedahay axzaab
shuruuc adigu aad leedahay adiga keensaday guddi doorasho adiga aad leedahay adiga kaliya oo doorashada galay annagoo kule talada dhexda dhig aan kula wadaagno aan kula galno doorashada ilaa heerkan maalin walbaba aan kala hadlayno aan kula hayn ka joog oo aad lahayd cidna u joojin mayno waxay gaartay inaad xalana gasho oo international partners Mareykanka siyahayahooda iyo safiirka Ingiriiska aad hor fariisato adigoo mas'uuliyadii qaranka ay ku aad haysato oo mandatekiina aad leedahay waxaad halkaas aad diiday in hore loo socdo oo heshiis lagu galo bishii la soo dhaafay 13keedii 14keedii adigoo heli kara inaad ummadan waalaha la fariisato mas'uuliyiinta la fariisato stakeholders ka la fariisato oo aad nala fariisato oo aan doorasho kula galno ilaa meesha iska fadhin maysid 4 sano lagu heshiiyay waa dhamaatay in aan kala heshiino oo aan keeno doorasho wada ogol ah adiguna aad qayb ka tahay qof walbana oo Soomaaliyeed uu qayb ka yahay maanta waxay soo gaartay in aad magaalada meel walba ay xabad iyo dhimasho iyo dhaawac iyo barakac aad ka geysato oo aadan cidna u aabayeelin madaxweynuhu talada dhexda dhig dalkan doorasho waa inuu galo xoog kuma haysan kartid cid xoog ku haysan kartana ma jirto cid shalay xoog rabtay inay ku haysatana ma jirin maantana kuma haysanaysid waqtigaagii waa dhamaaday cidna ha ku dilin cidna ha ku dhaawicin cidna hantidooda ha ku burburin talada dib ugu soo noqo xabadda jooji inta dishay inta dhimatay waa naga wada dhimatay Allahu naxariisto inta dhaawacanna aan daaweysano Allah caafiyo meeshaas ha ku ekaato madaxdii hore xurmay leeyihiin sharaf bay leeyihiin inaad weerarto xaq uma lihid waxay ku timid arintan in la yiraahdo hala banaanbax soo xaq maaha soo dadku muwaadiniin ma aha soo xaq uma laha inay banaanku soo baxaan si salmi ah ay shucuurtooda iyo waxa fakarkoodu yahay ay banaanku soo dhigaan soo hawl dastuuri ah maaha soo qodob dastuuri ah maaha maxaa ugu diidaysaa maxaa u keentay inaad la dagaasho oo aad ilaa xalay oo dhan magaalada xabad ay uga socoto waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxgaradka Soomaaliyeed arintaasi inay indhaha ku hayaan dalkaani xoog lagu ma haysan karo horaan loogu haysan waaye haddana lagu ma haysan karo biri lagu ma haysan karo waxaan u baahannahay Xasan Sheekh Maxamuud oo aan isla nahay madaxweynayaal hore inaan gacmaha ka qabanno oo aan dib ugu soo celinno maxaan ku raahdaa miiskii wada hadalka aan dib ugu soo celinno haddaa heli kartidna inay noqoto hawl Soomaali dhexdeeda ah oo adigu aad odageedii tahay oo ay tahay inaad u tanaasusho waxaan rabaa ciidamada qalabka sida inaan halkan baaq uga diro waxaa la idin tababaray waxaa la idin carbiyay shaqo qaran dalka inaad difaacdaan oo cadowga dalka uu leeyahay aad u istaagtaan la idinma tababarin inaad dhinac jirsataan aad qayb ka noqotaan arrimaha loolanka siyaasadda aad qayb ka noqotaan madaxdiina ha weerarina haddii la idin yiraahdana ha yeelina maxaa yeelay waa madaxdii shalay idin dhistay waa madaxdii shalay idin tababartay waa madaxdii shalay idin qalabaysay haddii Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore uu isagu garan waayay inuu u isticmaalo ciidanka qalabka sida saxa ah idinku garta haddaad tihiin askar dabley haddaad tihiin saraakiil haddaad tihiin ciidan sare haddaad tihiin garta marnaba ha yeelina in shacabkiina laydinku laayo in madaxdiina laydinku laayo hore in siyaasiyiinta laydinku laayo oo amar laydinku siiyo ha yeelina maxaa yeelay sharciyad dowladdan ma laha waa in Xasan Sheekh Maxamuud uu raadsado sharciyad uu ku bixiyo awaamiir noocan oo kala ah laydinma samaynin laydinma abaabulin laydinma tababarin inaad dib ugu soo noqotaan shacabkiina iyo madaxdiina hore madaxweynaha waxaan leeyahay dhibaatada hadda jirta shacabka Soomaaliyeed haysata hadday tahay maciishada hadday tahay tan nolosha hadday tahay dhaqaalaha
hadday tahay duruufaha kala duwan oo haysta iyo kuwo badan oo la barakiciyey oo adigu aad barakicis madaxweynow ha ugu darin xabad ha ugu darin dhibaato kale ha ugu darin shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay adkaysta dhibkan waa laga baxayaa duruuftan adag waa laga baxayaa isbedel yaa imaan doona dowlad caadil ah imaan doonta insha Allah waa guulaysanayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh